تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دوائد سلامي وولاشين أسماء جنالك أي داوانيسان وأسماء عبسلان. هدي أي داوضة تاي مركي أوريسيات جنالكينا صوبوقتو بليز سبسكرايب كنوصار حتى هورينو لجوكتين لايك تهنيجي إلاوين aad ayaa u mahadsan yihiin asxaabta subscribe-ka ii saaray channel-kayga oo isoo dhaweeyay oo fiidiyoyadeyda maaragtaa daawada aad ayaa u mahadsantiin ayaa idin leeyahay asxaabay waxaan idin wadaa qiso inaba aan caadi ahayn oo cajiib ah qisadan oo aad u murugo badan qisadan oo ka ilmeysiinaysa qof walba oo qalbigiisu jilicsan yahay qisadan ayaa waxay ku dhacday gabar ilmaheedo yar dishay gabar hooyo ah oo gabar yar oo dishay sababta ay u dishay iyo waxa ku koosgareeyay iyo kulli qisada ayaan ku arki doonaa ee daawo qisada nala wad oo hanaga caajisin asxaabay gabadha qisadan waxay ka dhacday wadamadan Carabta waxayna ku dhacday gabar yar oo la yiraahdo Xanaan waxay ahayd gabar yar oo 15 jir ah waxna barata maalin ayaa waxa ku dhacay inay maaragtaa iskuulka ka timaaday xilliga ay ka imaan jirtay maalinkaas waa maalin aad murugo badan oo taariikh nolosheeda ku yeelatay maalinkaas waxaa dhacday in Xanaan familkeeda ay aadeen tacsi ka jirta magaalada ugu dhow ee tuulada oo ay degan yihiin family ahaan ka soo jeedaan ayaa tacsi ka dhacday tacsidaas oo qof qaraabadeeda ah ayaa dhintay familka marka tacsidii ayay aadeen Xanaan ehelkeeda waxa dhacday Xanaan inay ka timaaday iskuulka xilligay ka imaan jirtay ee galabkii ah Xanaan maxaa ku dhacay Xanaan waxay timid gurigii oo dadkii dhan ay jiraan tuulada oo ay jiraan tacsidii ayay timid waxa dhacday nasiib darro in uu wiil dariskooda ahaa uu kor ka arkay inay gurigoona cileeyahay Xanaanna ay guriga joogto waxa dhacday inuu wiilkii u soo galay Xanaan oo maaragtaa uu kala tuuray oo maaragtaa handaday oo maaragtaa si xun u dilay oo uu kufsaday nasiib darro Xanaan ma aysan helin qof caawiya ama qof maaragtaa ii sheeg markaas qayladeeda ku soo baxa oo caawiya ma aysan helin Xanaan way qaylisay markuu ninkaas isku dayay inuu ku xadgudbo way qaylisay oo wax maqla qayladeeda ma aysan helin waxa dhacday inuu sidaas maaragtaa ku kufsado Xanaan oo ay maaragtaa arintaas isku dhamaatay reerka Xanaan way soo noqdeen waxba maysa dareemin gabadhooda Xanaanna way iska aamustay ilma yarna way iska ahayd way iska aamustay waxna reerkooda umaysa sheegin Xanaan waxay leedahay reerkeeni way soo noqdeen ayadoo dhibkaas uu igu dhacay mana aysa dareemin in reerkeenu ay wax ugu dhaceen waxa dhacday bay tiri muddo kadib inay maaragtaa reerkeena dareemaan sababtay ku dareemaan ay ahayd inuu jirkeyga isbedelay xaaladeeda isbedeshay ayay hooyaday waxay tiraahday Xanaan waad xanuunsan tahay soo bax isbitaal baa ku kaxeynaya isbitaal ayaa lii kaxeeyay ayay tiri waa lii waday isbitaalkii ayaa lii geeyay waxa dhacday bay tiri inuu ninka dhakhtarka ahaa yiraahdo gabadhiina waxay leedahay uur oo maaragtaa waa xaamilo hadhowna ay hooyaday tiraahday isku naxday sabab see ku dhacday arintaas maxaa kugu dhacay waxa ireebay tiri muxuu ahaa aniga wax dambi arintaas kuma lihi arintaas waxa u maleynayaa bay tiri inay maaragtaa maalinkaas inay ahayd aniga wax dambiya ma lihi aduu waxa dhacday waxay tiri walaalkay wuxuu rabay inuu idilo oo nafta ii dhaafiyo oo idilo oo wuxuu aad uga murugeysnaa inaa maaragtaa aniga ceeb u keenay oo wuxuu yiri ceeb ayaad ii keentay familka dhanna saasay aaminsanaayeen waxa dhacday bay tiri in maaragtaa walaalkay uu aad inuu idilo damcay aan qol isku soo xiray sidaas ayaa uga badbaaday aduu waxa liigu yiri yaa arintan waxaan kuu sameeyay maxaa kugu dhacay
waxaan iri bay tiri wiilkaas deriskeena ayaa saa ii galay maalin hebla maalin fulaan aad maqnaydeen waxaa la yiri hooyo iyo waxay tiri iyo walaalkay iyo aababa markiiba waxay u tageen maaragtaa reerkii wax yar kadib waxaa ii yimid bay tiri dadka ugu waaweyn xaafadda ehelka qaraabada ugu waaweyn waxayba rabaan bay tiri inay imeheriyaan oo maaragtaa lii guuriyo ninkii dhammaa oo aniga sidii loo kale mustaqbalkayga ugu ciyaaray oo micnihii kufsadaha ahaa ayay waxay damceen inay maaragtaa ii guuriyaan aniga waxba ma diidi karin choice mana lahayn dooq aan wax ku diido ama ku ogolaado sidii ayayna maaragtaa ninkii liigu guuriyey isla markiina sidii ayaa liigu wareejiyey oo gurigiisa lii geeyey ayay tiri Xanaan waxay tiri sidii ayaana maaragtaa liigu guuriyey odayaashii xaafadda markay yimaadeen oo iyagoo ceeb ka cararaya ayaa waxaa la sameeyey bay tiri in markiiba ninkii liigu meheriyo oo sidii liigu wareejiyo oo reerkii wiilkoodu i kufsaday in farta layga saaray ayaa dhacday bay tiri sidii ayaana gurigii liigu geeyey waxay tiri waxaan kala kulmay gurigii aan xaaska ku noqday waxaan kala kulmay bay tiri muxuu ahaa dhib badan iyo tacadi badan iyo xadgudub badan dil kufsi labaad wax walba ayaan kala kulmay tiri kufsiga oo iga imaanaya ayay tiri ninkeyga aabihiis ayaa wuxuu isku dayi jiray bay tiri inuu maaragta igu xadgudbo markasta ninkeyga markaan u sheegayna waxaa dhacday ayay tiri inuu dhaho arrintaas keentay wax arrintaas waa micnihii aabahii waad ku xadgudubtay oo markaa lay dilo oo maaragta lay tacadi badan lay geysto adoo waxay tiri gurigiina saas baan ugu dhibanaa oo murugo iyo dhib baan ku noolaa wax yar kadib waxay tiri waan dhalay wiil ayaan dhalay ayay tiri alxamdulillaah waxaa dhacday bay tiri in maaragtaa aan sidii xaaladaas oo aadka u murugada badan aan ku noolaa oo muddo ku noolaa waxaa dhacday tiri muddo kadib waxaa dhacday in maaragtaa ninkii uu tacadiyada badan ii geysan jiray oo dili jiray oo maaragtay abuseyay waxaa dhacday tiri muddo kadib in maaragta aabihiis uu bilaabo in maaragta oday iska xoogaa jiri ayuu ahaa bay tiri inuu bilaabo in maaragta ugu xadgudbo oo khaladaad badan u sameeyo adoo waxay tiri uur labaad ayaan yeeshay uurkii labaad aan yeeshay bay tiri anoo xaamilo ah oo dhali rabay tiraahday intaasoo bilood cid dhakhtar i geysay ma lahayn guriga ayaan iska joogi jiray waxaa dhacday tiri in maalin maalmaha ka mid ah oo wiilka aabihiis wiilkii kufsaday aabihiis ayay leedahay inuu sa iyo kala tuuray oo uu damcay tiri inuu wax xadgudbo isla markiina waxay tiri nabar baa i qabtay waan xanuunsaday tabcaan baa noqday asagayna markaan saa u kala tuuray tiri iska celiyay wuu baxay meeshii ayaan waxay tiri ku rafaaday oo aan ku dhalay bay tiri guriga keligay aanu ah baan dhalay bay tiri saasta aan dhalay murugada ugu badan iyo qisada meesha uga socono ayaa waxay tahay sababta ay ku dishay Xanaan gabadheeda ayaa waxay ahayd saastii waxay tiri aan maaragtaa aan guriga aan u dhalay ayaan waxaan arkay bay tiri laxdada arkay gabar yar oo aad u qurux badan oo saa ii soo fiirinaysa ayaan waxaan u baqay tiri mustaqbalkeeda waxa gaari doona iyo say noqon doonto iyo in aniga sidii maaragta aan noqday nolosheeda mugdiga u gashay in ayadana mugdi u gasho ayaan ka baqay tiri sheekada waa idin soo sheeko dhaafay waxay tiri markii oo aan intaana gabadha dhalin oo wiilka aan dhalay bay tiri oo hore oo maaragta arkay bay tiri odayga guriga jooga inuu wax xadgudbayo oo maaragta tacadi sameynayo ayaan waxa sameeyay bay tiri in reerkeena u tagay reerkeena waxay dhaheen bay tiri no noqo gurigaagii ma soo gali kartid gurigeena ayay dhaheen bay tiri reerkeena bay tiraahday dhinacayga way ka baxeen oo ana u baahan ayay iska kay fogeeyeen waxaa dhacday bay tiri in markiiba maaragta aan iska soo noqday oo meel aad aan waayay marka aan gabadhayda yartaa dhalay bay tiri oo saa u dhalay
oo weliba asagoo odayga weyn igu xadgudbaya aan arrintaas aan dhulka ku dhacay oo nabar qabtay aan dhalay bay tiri. waxaa markiiba ii muuqatay bay tiri gabadhayda oo mustaqbalkeeda sideedoo kale u xumaaday oo xaaladeedoo kale ku jirta ayaa ii muuqatay tiri. isla markiiba waxaan sameeyay bay tiri anoo ka fakerin ayaan cunugteyda yartaa keli ah waxaan ka fakeray xaaladii kufsigii iyo say faamilkeyga iyo gacan dhinacayga uga baxeen iyo dadka ka dambeeya aabe oo museyga waxa ka dambeeya dadkii markaan xasuustay ayay tiri ayaan go-aan waxaa markiiba ku gaaray inaan gabadhayda dilo oo ugu yaraan aniga dhibta amray aysan marin oo ay iska dhimato ayaan go-aan ku gaaray. isla markiina cunugteyda meeshii ayaan ayadoo hooyeysa oo markaas dhalatay aan ceejiyey oo aan masar ku ceejiyey ayay leedahay. meeshii ayayna cunugteertaa ku dhimatay. isla markiina waxay tiri aniga waan sooxay oo aad ayaan u dhiig baxayay. isla markiiba meeshii ayaan ku dhacay bay tiri. adugu alxaasil hooyadan isla markiiba isbitaal ayaa la geeyay bay tiri. waxaan ku miirsatay anigoo isbitaalka jooga sidii ayaana laygu xiray oo layga mujrimad aan ku noqday gacan ku dhiig la noqday. sidii baana aan xabsi ku galay. xabsigaas ayaa iiga fiicnaa bay tiri guriga aan ku noolaa. marka waxay tiraahday wax badan nolosheeda xabsiga waa isbedeshay saxa iyo khaladkaan kusoo fahmay. waxay tiri waa kusoo nastay waxbaan kusoo bartay xirfado shaqaan kusoo bartay koofeerka sida timaha loo hagaajiyo make upka waxaasoo dhan ayaan kusoo bartay ayay leedahay xanaan. adugu xanaan meel kasta jaraa'idada lagu soo qoray qisooyinkeeda wadankeeda ay joogto baa meel kasta qisadeeda ayaa lagu soo qoray. xanaanna waa gabadha ujeedaan ee sawirkeeda aan soo saaray meesha. waxaa dhacday in xanaan ay ii sheeg xabsigii hay'ado u dooda xuquuqda aadamaha ay u doodeen oo laga soo saaray xabsigii. xanaan xabsigii waa laga soo saaray waxaana looga soo saaray waxaa layiri hooyo ilmaheeda dili karta ma jirto bilaa sabab. adugu xoogaa bay xabsiga kusoo jirtay ciqaabteeda soo qaadatay intii kalena waa laga soo saaray. adugu gabagabo xanaan waa qof aad u murugaysan sawirkeeda markaa aragtaan waa qof aad iyo aad u murugaysan oo murug inaba caadahayn ee ka muuqato oo murugtu aad ka dareemaysid adigoo halkaas sawirkeeda ka arkaya ayaad dareemaysaa murugada gabadhaas haysata. waxay tiri waxaasoo dhan waxaa iiga daran xabsigii aan kasoo baxay xabsi ayaa noqday sababtoo ah waxay tiri dadkii mujtamacii waxaa lileeyahay bay tiri waa tii ayaa lileeyahay bay tiri. marka waxay tiri ehelkeyga mujtamaca kulli bay tiri meel aan ka marayaan laahay. xabsigii aan ku jiray haddana waxaan soo galay tiri xabsi anoo banaanka jooga waxaan dareemayay tiri murugo aad u weyn sababtoo ah qofkii dambiga geystay oo dhibka geystay waxay tiri banaanka ayuu xorriyad ku socday aniga ayaana dambigii dhan dusha lay saaray. waana qarsanahay tiri inaa aniga dembi galay oo aan gabadheeda dilay laakiin waxaa aaminsanahay tiri dembigan iyo waxaanu dhan dadkii ka dambeeyay inay ciqaab la-aan adduunka joogaan oo ay ciqaab la-aan muteen oo anigu dembigoodii iyo waxoodii dhan inaa aniga qaatay ma fahantay oo dusha lay saaray. alxaasil qoftan xanaan waa laga soo daayay xabsiga. waxaa leeyahay ninka wareysanaya xanaan ma jeceshahay buu leeyahay inaa aragtid gabadhaada qabrigeeda six leedahaa horey ma u aragta maya bay tiri dadkaasaan ka baqaya inaan arko ummadaan ka baqaya bay tiri inay igu arkaan soo bax baa laleeyahay waa maalinkii kugu horeysa gabadhaada qabrigeeda aad tagtid ubax ayay goynaysaa way ilmeynaysaa wayna dareensantahay inay khalad gashay laakiin arrinta khaladkaasoo dhan aasaaska u leh ayaa waxay tahay xadgudubkii uu ku xadgudbay ninkii oo deriskooda ahaa. waxaasoo dhanna waxaa kasii asal ah oo aan khaladka u badan aniga dareemaya inay tahay ehelkeeda oo la rabay gabadhooda gar iyo gardarooba inay garab istaagaan laakiin ay saas uga garab baxeen ayay dee mustaqbalkeeda saa u burburay. marka
asxaabteyda waxaa aad u jeclaystay inaan idinla wadaago qisada Xanaan. Xanaan waa hooyada gabadheeda laxdaday saa u dhashay dishay. Sababta ku kaliftayna waa micnihii waa idin sheegay oo ah in maaragta lagu xadgudbay oo la kufsaday ehelkeedina ay garabkeeda ka baxeen. Marka Xanaan waa hooyo murugaysan, waa hooyo maaragta ii sheeg dee maaragta xaaladeeda u jeedaan gabar yaroo maskiino la kufsaday, gabar yaroo maskiino maaragta ninka kufsaday lagu daray, gabar yaroo maskiino odaygii guriga joogay uu maaragta inuu ku xadgudbo isku dayay. dee Xanaan maaragta waa qof maaragta dulman, ma fahanteen? waa gabar yar oo maskiino reerkeedii ay maaragta dhinac ka noqdeen oo diideen ayagoo ceeb iyo ka cararaya. waa cunugta maaragta nin looga dhigay kii kufsaday. marka Xanaan qisadeeda waa qisadaas aad u murugada badan. marka waxaan jeclaystay gabadhaas arkaysaan sawirkeeda meesha saaran qisadeedaas yartaa inaan idinla wadaago. in maaragta qisooyinka dhanna sideedaba waa cibro qaadasho. baryahan aad ayay u badatay dhacdooyinka hadda Xanaan oo maaragta qisooyinka Xanaan ku kalifay in maaragta ay noqoto maanta gacan ku dhiigle. marka ilaahay waxaan u rajeynayaa ayadana gabadha maskiinta ah waa muslimad in ilaahay maaragta qalbigeeda u qaboojiyo oo qalbiga maaragta raxmad u ay dareento naxariis oo iyadana maaragta ilaahay u dambi dhaafo. maanta naf bari ah ayay goysay. ilaahayna waxaan u baryayaa kuwa oo maanta Xanaan saa u galayna oo ninkii iyo odaygiina in maaragta ilaahay soo qabto ayagana ilaahay maaragta xaqa tuso. marka intaas intay dambiye kale gabdho kale ay dambiye u geysanayaan ayaa aad u badan. marka wax kastana waxay fiican yihiin mushkilad kasta markaas in la xaliyo isla markaas haddii nimanka ciqaab la saari lahaa oo maxkamad lala tigsan lahaa waxaanoo dhan mayso dhacdeen. marka asxaabay qisada Xanaan intaas ayaan kusoo koobayaa. intaan qisadan qisa lamida iskaga imaan doono waa walaashiin Asmaa oo idin leh fi amaanillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. تؤمل أنك يوما تتوب